dumarka muslimiinta ay xijaaban maanta adduunka waxaa ku socda weeraro dhinacyo badan ka imanaya. mararka qaarkood innaga wiilasha muslimiinta ana waxaad moodaa qayb inaan ka noqono inagoon is ogeyn maybe qalbi fiican weerarada. laba qodob aan sheego. qodobka koowaad, hujuumka iyo weerarka dhinacyada badan ka imanaya ee dumarka muslimiinta amaanta ku socda gabdhaheena waxaa hormuud u ah saddex dhinac. dhinaca waxa weeyaan qolyahan sahnuuniyadda la yiraahdo ama Zionist ideology ku dhashay xambaarsan. waa dumarkan inta badan yuhuudda ah. waa kuwan hadda markaad aragto Saami Xamdigan la xiray iyo hay-adahan keer iyo mu'asasaadka muslimiinta twitterada ku caayama garanayno. waa kuwa inta badan bilaaba islamophobia ama dareenka ka dhan ah muslimiinta ah. kuwaas weerarka koowaad iyaga ku haya. kuwa ku xiga waa kuwan ka shidaal qaata oo far right wingiga axzaabtan xag jirka ah ee cunsuriyiinta ah kuwanay ka shidaal qaataan. kuwa saddexaadna waa kuwan leftiska ama liberaalka marmarna iska dhigay inay muslimiinta gaashaanbuur leeyihiin marmarna ah cadow banaanka yaalla. ilaahay baa yidhi walan tardaa canka alyahuuda wala nasaara xataa tattabicu millatahum. qolyahan aan sheegayno ilaa aad diintooda qaadata mooye marra kaa raalli noqon maayaan. idan saddexdaa markaad eegto waxaa dhiba astaantan xijaabkaa dhibta. tusaale, ilhaan gabadha la yidhaha u fiirso. innagu haddaynu mujtamac soomaaliyeed nahay qaar naga mida waxyaabo badan baan ku khilaafsannahay ilhaan oo aanu garanayno oo waxba muhiim ah hadda inaan sheegno. laakiin ilhaan inay mutaysato in la yidhaahdo waa lagu dili, la aflagaadeeyo oo handadaad iyo hanjabaad joogto ah ay hesho waxay salka ku haysaa wax kale maaha, waa khamaarkaa ay xidhan tahay weeyaan. qaybo fara badan oo aniga shakhsiyan aan ilhaan ku khilaafsanahaa jira, dhammaantiin aad wada garanaysaan. laakiin haddana waxaan ogahay dilka iyo hanjabaadda iyo aflagaadada iyo halaga eriyo waddankan waxaasoo dhan wax kale maaha, waa khimaarka ay xidhan tahay weeyaan. idan dumarkeenu bannaankii waxay u yaalaan oy bartilmaameed u yihiin oy taarget u yihiin hujuumka ku socda islaamka. sababtu maxay tahay? sababtu waxa weeye gabadheedu hadday 8 jir tahay khimaarkaasay xidhan tahay. wiilkayga 8 jirka ah laakiin t-shirt iyo jeans iyo koofiyad buu xidhan yahay. markay yaryar yihiin gabadha waxaa khaas u ah marka weerarkaasa khaas u ah. markiiba waxaa la garanayaa astaan ka turjumaysa islaamka inay ka muuqato ay xidhan tahay. wiilku laakiin wiilashaas ku dhex dhuuman karaa. idan bullying hadday noqoto, identity crisis hadday noqoto, waxaasoo dhan iyadaa marka hore taagad u ah. markay koraan ay jaamacadda gaaraan iyadoo way xijaaban tahay. idan marka axsaabta xag jirka ay hadlayaan ama madaxweyne cunsuriya waddanka qabsado uu yiraa muslimku ma soo geli karo, shareeca islaam ay wataan, waa argagixiso, ama nin muslim sheeganaya uu dhibaato geysto oo muslimiintu idaacadaha ay soo galaan, cidda bartilmaameedka noqonaysa wiilasha ma ah, waa gabdhaha. way u fiirsa marka mar walba hujuumkaasaa ku socda. cidda baqaysa waa hooyada xijaaban ee vaanka ku wada caruurteeda dugsi qur-aanka geynaysa, ma aha walaalka koofiyadda baseballka xiran ee t-shirtka xiran ee jeanska xiran ee koofiyadda iyo jaakada iyo boorsooyinka raran ma aha. idan runtii hujuumkaasaa ku socda. inagu inaan gaashaan u noqono, hiil u noqono, garab u noqono, isaga gudubno waxaa mooyaane runtii mararka qaarkood cadaalad maaha in la huwiyo magacyo aan munaasab ahayn. waxaan ka wadaa haddii walaalka soomaaliyeed ee bartay culumta islaamka uu khaldamo, aayad iyo maxadiis ku khaldamo, waa la sixi, waa loo nasteexayn. sidaasi lamida gabadha soomaaliyeed ee culumta islaamka baratay hadday khaldanto sidaasi lamida waa in loo soxo, lianna labadooda islaamnimada ka weyn oo ku salaysan addiinu nasiixa. islaamnimadu waa isu nasteexayn. laakiin waxaan cadaalad ahayn iyaga in la huwiyo magaca waa feminist. magacaas runtii waxba ma soo kordhiyo, keliya wuxuu shidaal siiyaa feministka dhabta ah ayuu shidaal siiyaa ee waxba inaga inooma soo kordhinayo. waa la sixi labadooda, laakiin magac iyaga khaas u ah in la huwiya ma aha. hadday noqoto dadka cadowga ku ah islaamka, ragguna waa leeyihiin, dumarkuna waa leeyihiin. ragguna kuwa la yaqaano fara badan bay leeyihiin oo qaarkood wadaada iska dhiga oo ilaahay haddii ku samagay sunnada rasuulka aan ogolayn. dumarkuna kuwa ayaan xirsiyo kale leeyihiin. laakiin gabdhaha ducaada ah ee masaa'ilka qaarkood ku khaldama magacyada lagula degdegayo waxba ma soo kordhiyaan. waxaan rabaa marka inaan idhaahdo haddii wax laisu sheegi dadka khayrka ka shaqeeya
sideennaba runtii dad yar baa leeyahay insha allahu allah nagu daro kuwa khayr ka shaqeeya tiradeena way yar tahay waxaa naga dhawaaq dheer hadda runtii kuwa fitanka ka shaqeeya haddii intan khayrka ka shaqeysa isku mashquusho oy magacyo ishuwiso waxaa laga yaabaa marka wixii cadowga ahayn hadda sheegayna saddexda geesood uga imanaya dumarkan astaantoodana kula dagaalamayay in ay runtii ka guulaystaan qofka walaashii ama walaalkii saxaya ha raadiya xiriirkooda si khayr qabta oo nasteexa leh ha u saxo cidda la raba inaan ku mashquulo waa dadka cadowga asalka u islaamnimada weeyaan ama qofka muslimka khaldamay hanaan iyo qaab iyo walaalnimo loo saxo oo diinteennuna ay banaysaa jirto allah ina garansiiyo wasala allahu calaa sayidina